Soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Riyaad. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago qisadayda aadka u murugada badan. Waxay igu dhacday qisadani muddo laga joogo sannado aad u fara badan. Waxaan jiray xilligaasi 7 sano, waxaana dhacday in waalidkayga uu shil galo, kadibna meeshaasi uu ku geeriyoodo. Waxaan aad uga murugooday dhimashadooda, balse waxaa jirtay murugo taa igaaga weyn, waxayna ahayd in laygu xareeyo meesha agoomada lagu xanaaneeyo. Maalin baa gurigeena waxaa yimid qaraabadeenii oo idil, waxayna go'aan ku gaareen inay meeshaasi igu xareeyaan maadaama ay yihiin dad aad u mashquul badan oo mar walibana shaqooyinkooda ku mashquula. Waxay bixiyeen lacag aad u fara badan si meeshaasi aan u joogo. Waxaa dhacday habeenkaygii ugu horreeyay in meeshii aan ku baryo, welibana anigoo aad u murugaysan. Dhammaan carruurta meesha igula jirtana waxay ahaayeen kuwo igu qosla, balse markii dambe waxaa ii yimid mid ka mid ah, waxa uuna i dhahay, wiil yahow magacaa. Waan dhegaystay, haddana mar kale ayuu igu celiyey, wiil yahow magacaa, adiga ayaan kula hadlayaa. Isla markiiba waxa uu bilaabay inuu gacan ii qaado. Dagaal aad u xoogan ayaana dhex maray, balse maadaama uu ahaa mid iga weyn, waa uu i dilay. Markiiba waxaa timid macallimadii, waxayna kaxaysay wiilkii, ayadoona u kaxaysay dhanka iyo qolka ciqaabta. Wax yar kadib waxaa ii timid gabar aad u yar, waxayna dhahday, soo dhawow wiil yahow, magacayguna waa Basma. Inta fiiriyey ayaan ka aamusay. Ilmaduna waxay ahayd mid aad igaga qubanaysa. Dhinacayga ayay inta fadhiisatay, waxayna bilowday inay igaaga sheekayso sharciyada kolleejka. Kadibna waxaan idhi, aniga ma rabo inaan kolleejkani ku sii jiro, mar dhowna waan ka bixi doonaa. Markaas ayay inta naxday waxay dhahday, ma waxaad heshay reerku kafaalo qaada? Kadib waxaan dhahay, maya, waxay ahaataba xabsigani waan ka bixi doonaa. Waxaa la gaaray xilliga cashada, dhammaan carruurtii oo idilna waxay iskugu yimaadeen hal miis. Markaa aragtid siday u faraxsan yihiin, waxaa u moodaa inay yihiin sidii hal qoys oo kale. Waxaa nagu dhex jiray 3 wiil oo xoogaa naga da'weynaa. Markaan soo casheennay kadib, waxaan nimid qolkeena. Macallimadiina waxay tustay meeshii aan seexan lahaa. Kadibna waxay dhahday, qofkii intii la hurdaya hadla, waxaa ballan ah inaan ciqaabo. Anigana waxay dhahday, haddii aad dareento wax dhibaato ah, qolkayga igu imow. Markiiba way baxday oo nalka ayay inta damisay waxay dhahday, hurdo wacan ayaan idin rajaynayaa. Markaas kadib waxaa dhacday inaan awoodi waayo inaan hurdo. Waqtiba waqti ka dambeeya, hurdadii ayaa iga sii haadaysa. Waxaana ka fikirayay waalidiintayda iyo sidoo kale sidii aan uga bixi lahaa kolleejkani. Wax yar kadib waxaan maqlay cod ooyin ilmo yar ah. Markiiba aad ayaan u naxay, waxaase dareemay codkani inuu ka imaanayo qolka banaankiisa. Waan soo baxay oo waxaan soo aaday dhanka iyo qolkii macallimadda ay degneed. Markii aan u imaaday ayaa waxaan arkay macallimadoo hurdaysan. Waxayna dhahday, maxaa kugu dhacay oo xilligani u socotaa? Waxaan dhahay, waan cabsaday oo waxaan maqlay cod ilmo yar oonaya. Waxay dhahday, aniga codka aan maqlin oo adiga aa maqashid waa maxay? Waxay dhahday, dhibaatada ku haysta wax kale ma ahan, maadaama habeenka ugu horreeyay kolleejka uu yahay, cabsidani ayaad dareemaysaa. Kadib waan soo baxay oo sariirtayda ayaan imaaday. Habeenkaasi oo idil maanan hurdin. Subaxii markii uu waayiga baryay ayaan soo dhaqaajiyey, balse waxaa i soo daba kacday gabadhii yareed ee Basma ahayd. Waxayna dhahday, halkani maxaad ka qabanaysaa? Waxaan dhahay, waxaan raadinayaa cunug yar ooyintiisa xalay aan qolka ka dhex maqlayay. Waxay dhahday, waa la yaab, weligeyga waxaas maana maqlin, ee waa maxay waxaad ka sheekeynayso? Waxay dhahday, bal ka waran caawa markaad codka maqasho, haddii aad soo kicisid oo aan isla raadino. Waxaan dhahay, okay. Kadib waan soo baxnay oo waan seexannay. Habeenkii markii la maraayay xilli saqdhex habeenimo ah ayaan soo kacay. Waxaan arkay Basma oo iska hurdaysa oo hurdo macaanna u socota. Kadib waxaa la gaaray xilligii cunuga codkiisa aan maqli jiray oo sidii ayaan maqlay. Weliba markani waxa uu ahaa wiil aad u oonaya lehna, ibadbaadiya. Basma waan awoodi waayay inaan soo kiciyo. Markiiba waxaan bilaabay inaan si tartiib ah u soo raaco codka, balse codkii markii aan bannaanka imaaday waa waayay. Kadib waxaa dhacday in aan maqlo qof gadaasheeda ka hadlaya, ilehna, halkani maxaad ka samaynaysaa Riyaad? Markiiba dib haddii aan u soo fiiriyey, waa macallimadda. Waxay dhahday, halkani maxaad ka samaynaysaa? Waxaan dhahay, waxaan u baahanahay biyo aan cabo. Kadib ayay dhahday, jikada halkani ma ahan,
dhankaasi kale ayay ku taalaa ee orod aad. Sidaas ayaan habeenkii ku seexanay oo markii aan soo kacnay ayaan Basmo uga sheekeeyey wixii xalay dhacay. Waxay dhahday soo ballanka ma ahayn inaad i kiciso, maxaad keligaa u baxday? Waxaan dhahay waxaan diidanaa intaan ku kicinayo waqtigeenu iga lumo sidaasna codka aan ku waayo. Waxay dhahday ugu yaraan aniga hadda kadib i kici si aan u noqdo markhaati. Waxaa yimid yarkii i dilayay habeenkaygu ugu horreeyay kuleejka aan imaanayay, waxaana la yidhaahdaa Taamir. Waxa uu bilaabay inuu u qeeliyo maclimadda asigoona ku leh Riyaad wuxuu iga xaday kabahayga. Waxaan dhahay maan arag. Kadib wuxuu dhahay xalay waxaan ku arkay adigoo korkayga taagan. Kadib maclimadda ayaa dhahday ma aragtay kabihiisa? Maya ayaan ku dhahay. Waxay dhahday xalay oo idil ayaad wareegaysay ee ceelka miyaad ku tuurtay kabaha? Markii waxaan dhahay maya macalin, aniga kabihiisa ninkani maan arag. Kadib waxay dhahday kabaha Taamir haddaad keen weysaan carruur yahay dhammaantiin waan idin baari doonaa, qofkan ku arkana ciqaab ayaan marsiin doonaa. Basma ayaa weydiiyey halka uu ku yaalo ceelkani ay ka hadlaysa maclimadda. Waxay igu dhahday wuxuu ku yaalaa dhismahani gadaashiisa, waana ceel qadiimi ah oo afka ka daboolan, lamana ogolo in loo dhowaado. Waxaan dhahay inakeen waxaan ka soo raadinaynaa Taamir kabihiisa. Markaas ayay dhahday waxaad ogaataa in ciqaab aan mutaysan doonno. Waxaan dhahay kor iyo hoosba waana la ciqaabi doonaa, ee haddii aad cabsanaysid adigu iga har, anigu unbaan aadaya. Kadib waan is soo raacnay, waxaan bilaabnay inaan ceelka dhankiisa aadno. Markiiba waan imaanay, waxaana ka qaadnay daboolkii. Madaxayga ayaan geliyey si aan u arko waxa gudihiisa ku jira, balse waxaa hal mar ka soo baxay dabeel aad u xoog badan, waxaana la socotay qayli aad u daran. Dib ayaan uga soo booday. Basma ayaana isoo jeeday. Waxay dhahday meeshani waa halis ee naga keen. Markii waxaa timid maclimadda, waxayna dhahday halkan maxaad ka sameynaysaan? Dib u soo laabta, maanta ciqaab ayaa mutaysateen. Waxaan dhahay macalin maxaan sameynay? Waxay dhahday waxaa jebiseen mid ka mid ah sharciyada kuleejka. Waxaan ku dhahay macalin hore maadan igu sheegin. Kadib wayna soo waday oo waxayna keentay qolka ciqaabta. Waxayna dhahday maanta wax cunto ah ma lihidiin. maclimadii intii ilbaabka kor nooga xirtay ayayna naga tagtay. Basmana waxay dhahday maanta ciqaabteenu waa inaan cunto helin, aanan ciyaarna helin. Waxaan dhahay ilaa iyo meeqa ayaan ciqaabtani ku jiraynaa? Waxay dhahday ilaa iyo berito. Waxaan dhahay haddaba cunugii yaraa codkiisa ma maqli doona caawa soo maahan? Markii ay saacado ka soo wareegatay oo qolkii aan ku jirna ayay maclimadii inoo imaaday. Waxayna dhahday labadiinaba intaani ayay ciqaabtiina ku eg tahay ee soo baxa. Markiiba waxaan dhahay maxaa dhacay maclimad? Waxay dhahday waxba ma dhicin, ee haddaba qolkiina jiifka toos u aada ee ordaha. Basma ayaa waxay dhahday xilligani xilli dambe weeye ee sidee qolkiina ku aadnaa? Waxay dhahday hadalka badan joojiya oo ordaha qolkiina aada. Waa ay naga soo hormartay oo horteena ayay socotay. Waxaana u soconay qolkeena jiifka, balse intii aan qolka usii soconay ayaa waxaan sii marnay qol macallimiinta ay shir ku lahaayeen oo markaasi ay ku wada tashanayeen. Si tartiib ayaan dhegta ugu dhaweeyey. Waxaan hadalkooda ka fahmay inay maclimaddu leedahay ayaantani khataraha aad ayay u fara badteen oo wixii jikada yaalay oo sakiimo ahaayeen ama midiyo ahaayeen dhammaantoodii waa la qariyey. Intaasi keliya ma ahan ee waxaa sidoo kale la qariyey wixii dabka loogu daaranayay ee jantaha ka mid ahaa. Kadib waxa ay la hadashay Basma waxaanay dhahday waxaan sameynayno waa khalad. Maclimadda haddayna aragtana ciqaabteena markani wax aad u daran ayay ka dhigaysaa. Markaas ayaa waxaan ku dhahay haddaba Basma waxaad ogaataa arrintani inaan ka sal gaarna ma ahane, lagama yaabo inaan joojinno ee cabsida iska dhaaf. Madaxa ayay inta ruuxda ay waxay dhahday haddaba waayahay inakeen. Asxaabay waxaad ogaataan aniga iyo Basma inaan go'aan ku gaarnay arrinkani inaan ka sal gaarno, balse wax waliba dib ayay ka cadaadeen. Markaan nimid qolka jiifka ayaan waxaan aragnay ilmihii oo soo wada jeeda. Basma ayaa waxay dhahday xaad u soo jeedaan? Waaba xilli dambe. Markaas ayaa mid ka mid wuxuu dhahay Taamir waxa uu nooga sheekeeyey sheekooyin cabsi ah oo ku saabsan kuleejkani. Waxaana u maleynayaa inay jiraan ree akhraad dharkeena iyo alaabteen naga xadaya. Waxaan dhahay Taamir wuxuu idin sheegay waa beentii, idinka ayuu rabay inuu idinkaga cabsiiyo, wax dhibaato ahna ma jiraan. Kadib sariirteeda ayaan tagay anigoona sugaya shirka wax ka soo bixi doona. Basma ayaa ii timid waxaanay dhahday igama tegi doontid soo maahan Riyaadow. Waxaan dhahay aniga taa ma garanayo, balse waa aan ka fikiri doonaa arrimahaas. Markaas ayay waxay dhahday haddii ree akhraadku uu soo baxo ha iga tagin, aad ayaan u baqayaa. Waxaan dhahay lagama yaabo inaan baxo ilaa aan ka ogaado ooyintani meeshay ka imaanayso. Waxay dhahday ballankeen sooma ahayn inaan baaritaan fiican sameyno. Waxaan dhahay haa, balse waxaan sugaynaa waxa ka soo bixi doono shirka macallimiinta ay qabsadeen. Intaas kadib waxaa soo dhammaaday shirkii. Kadibna waxaa noo timid maclimadii. Waxayna dhahday shirkeena waxaa ka soo baxay dhowr qodob.
waxaana ka mid ah inay mamnuuc tahay qof inuu bannaanka aado wax weliba oo dhaco. haddii ay noqoto cuntana qolkiina ayaa cuntada lagu keeni doonaa, qofkii wax u baahdana aniga ayuu ii sheegi doonaa. taamir ayaa dhahay haddii aan musqul u baahno ka waran. waxay dhahday haddii aad musqul rabtaan koox koox ayaad isku raaci doontaan, qof weynna waa uu idin raaci doonaa, anigana halkani ayaan seexan doonaa caawa. intaasi kadib basma waa ii soo dhowaatay, waxaanay dhahday haddaba ma aragtaa macallimiintu waxay dareemayaan cabsi. waxaan dhahay haa, balse wax walba waxaa ka horeeya inay aaminaan marka hore carruurta yar ee habeen walba oysa ee aan maqlo. dhammaan dadkii odil way seexdeen, sida caadada ahayd waxaan sugayay ilaa aan ka maqlayay codkii cunugii yaraa. balse habeenkani waa ay ka duwneed habeenadii kale oo cunuga markani waa uu qoslayay. waxaana dareemay codka inuu aad noogu dhow yahay. daaqadda ayaan fiiriyey, misna waxaaba arkay dab bannaanka ka kacay. kadib waxaan bilaabay inaan ku qayliyo dab ayaa kacay, macallin dab ayaa kacay. markiiba waxaa soo kacday macallimadii, waxayna soo aaday meeshii dabka uu ka socday. ayada iyo macallimiintii kalena waxay bilaabeen inay damiyaan dabkii meesha ka kacay, halka carruurtani ay ahaayeen kuwo aad u cabsanaya. anigana waxaan soo dabagalay codkii cunugii yaraa oo mar kale aan maqlay, balse waxay aragtay macallimadii, waxaynay dhahday ma waxaad taqaanaa qofka ficilkani sameeyey. waxaan dhahay maya macallin. markaas ayay dhahday haddaba yaa ku soo kiciyey wiil yahow markii uu dabka socday. waxaan dhahay waxaan arkay dariishadda oo iftiin aad u daran ka soo galaya, sidaas darteed ayaana u soo kacay. mana laga yaabo macallimada haddii wax walba aan u sheegay inay aaminto, balse basma ayaan ugu sheekeeyey wixii habeenkaasi dhacay oo idin. waxay dhahday codkaasi aad maqashid habeen weliba inuu ka dambeeyo dabkani meesha ka kacay iyo sidoo kale waxyaabahana laga xado. waxaan dhahay haddaba waa kuma qofkaasi yuusa noqon karaa. ugu dambeyntii subaxii ayaa la gaaray, waana la cunteeyey. intaas kadib macallimaddu waxay bilowday inay qolka baaritaan ku samayso. kabtii taamir ayayna heshay, waxayna dhahday taamir kabtaada waxay ku hoos jirtay sariirta hoosteeda, haddaba yaa geliyey. wuxuu dhahay anigu garan maayo, waxaan u malaynayaa qof kale inuu meesha igu qariyey. waxay dhahday maya, waxay rabtay soomaaha riyaad inaad baxar geliso, sidoo kale waxaan u malaynayaa dabki inaad adigu shiday. wuxuu dhahay maya, aniga waxaas kama dambeenin. markaas ayaa waxaan dhahay macallin run buu sheegayaa ee asiga kama dambeenin falkaasi. taamir wuu isoo fiiriyey asigoo yaaban, wuxuuna dhahay waa mahadsan tahay maadaama aad i badbaadisay. macallimadii waxay dhahday haddaba haddii aad og tahay ninkani inuu ahayn, waa hubaal inaad og tahay qofka saxda ah falkani sameeyey. waxaan dhahay macallin aniga garan maayo qofka sameeyey, balse waxaan maqlay cod ilmo yar oo oonaya. ilmo yar ah inta dhahda ayay isoo waday, waxayna ii soo kaxaysay qolka ciqaabta. waxaynay dhahday riyaad, maalinta kolleejkan aad ku soo beerto wixii ka dambeeyey waxaan la kulannay dhibaatooyin aad u fara badan. mana rabo inaa adiga dusha kaa saar oo kugu eedeeyo, balse waxaad ogaataa midiyihii jikada dhex yaal dhammaantooda in la waayey. mana rabno ardayda in dhibaato la gaarsiiyo. hadday jiraan waxaad iga qarinaysid ii sheeg wiilkayga, keli ayaan nahay. markaas ayaan waxaan dhahay maya macallin, waxba kaama qarinayay. waxay dhahday aniga waxba dusha adiga kaama saarayo, balse waxaad ogaataa adiga mar weliba dhibaatada ay dhacaysa inaad adigu xaadir tahay. shalay wixii dhacay dab ayay ahaayeen, balse beri wax dhici doon lama ogo. haddii arrinkani uu sii socdo waa lagaa bedeli doonaa kolleejkani. intaas kadib macallimadii way iga tagtay, waxaana bilaabay inaan ka fikiro xaaladahani adag sidaan ku xalin lahaa. waxaa la gaaray habeenbarkii, waxaana sugayay sida caadada ahayd inaan maqlo codka habeen waliba aan maqli jiray, balse habeenkaasi wax cod ah ma aanan maqal. waxaa la gaaray subaxii, waxaana ii yimid macallimada iyo basma. waxba ayadoona la hadlin ayayna iga tagtay, si daran ayayna ii fiirisay. kadib basma ayaa waxay dhahday wax miyaad maqashay. waxaan dhahay maya, adiguna. markaas ayay dhahday maya, laakiin waxaad ogaataa dadka oo idil adig inay kaa shaksan yihiin, maxaa yeelay qolkani markii lagu soo geliyey wixii ka dambeeyey waxba maysan dhicin. waxaana sidoo kale ogaataa macallimadda halkani waxay ii keentay inaan adig warbixin kaa qaado. waxay macallimaddan u malaysaa dad bannaanka jira inaa xiriir la leedahay oo sidaasna sumcad daro ugu ridaysid kolleejka. hadduu kolleejka sumcad daro ku dhacna wax taageera ma heli doono. waxaan hal mar maqalnay qaylida macallimadda, kadib waxaan aadnay qolkeeda, misna waxaaba aragnay derbiga qolkeeda oo misna ku yaala halkan iga bixiya, haddii kale waan idin dili doonaa. sidoo kale waxaan aragnay midiyihii jikada laga waayey oo qaarkoodna suran yihiin derbiga, qaarna dhulka ay yaalaan. macallimadii ayaa inta soo jeesatay waxay dhahday maxaad damacsan tahay oo rabtaa inaad samaysid. waxaan dhahay macallin, anigu waxba shaqo waxaan kuma lihi. kadib haddana waxay fiirisay basma, waxayna dhahday adiga ayaa ninkani garab ku siinaya waxaan oo idil. waxay dhahday maya macallin, waxaan dhacayo anaga shaqo kuma lihin. intaasi kadib waan soo baxnay oo qolkii ayaan iskugu nimid. carruurta oo idilna way seexdeen, balse macallimaddu waxay ahayd mid aniga iyo basmana waardiyeynaysa. markii dambe waxaa dhacday
codkii habeen walba aan maqli jirnay inaan maqalno, welibana asigoo cunug yaraan leh ee badbaadiya. Kadib maclimad waxay bilowday inay codkii daba kacdo, aniga iyo Basmana waan sii daba kacnay ilaa markii dambe aan aragnay cunug aad u yar oo meel taagan. Waxaan bilownay inaan ciirsano, sidii uu noo waday wuxuuna geeyey ceelka dhinaciisa, hal mar ayuuna dhuuntay. Kadibna waxaan maqalnay codkii cunugii yaraa ee mar walba aan maqli jirnay, waxaana noo caddaatay in ceelkani uu ka soo baxayo codka. Kadib maclimadii waa ay suuxday, markiiba Basma ayaa u tagtay si ay u kiciso, balse way awoodi weysay oo waxay ka soo qaaday tooshkii ay wadatay maclimada. Inta soo baxa ayaan waxaan fiiriyey ceelka gudihiisa waxa ku jira. Markaas ayaan waxaan u wacay Basma, waxaana iri kaalay fiiri, waa wiil yar lafihiisa. Waa ay diiday, waxayna dhahday ma raba aniga inaan arko, waan cabsanayaa. Kadib waxaa soo kacday maclimadii, waxaana u sheegay sida wax u jiraan. Markii ayadan ay aragtay, aad bay u cabsatay. Waxay dhahday waxaa jirto qiso reer aakhiraad ah oo mar walba laga sheekeyn jiray, balse weligeyga ma aanan rumaysan jirin. Markaas ayaan waxaan dhahay waa maxay qisadaas? Waxay dhahday waxaa jiray hadda ka hor caruur yar oo halkani lagu hayn jiray, waxaana ku gubtay guriga, dhammaantoodiina waa ay dhinteen, balse meydadkii markii la xisaabiyey waxaa laga waayay hal meyd oo cunug yar ah. Meesha uu meydkiisa aadayna waa la waayay. Waxaan dhahay hadda waxaad ii sheegtaa ceelkani wax ku saabsan. Waxay dhahday hadda ka hor ayaa ceelkani la daboolay markii laga maqlay qayli fara badan oo kasoo baxaysa. Markaas ayay Basma dhahday soo lagama yaabo meydka xilligaas la waayay inuu yahay midka hadda ceelka ku dhex jiro. Maclimaddu waxay dhahday haa waa macquul, balse waxaa loo baahnaa inay si fiican u raadiyaan xilligaas. Subaxii waxaa yimid booliska, waxayna qaadeen lafihii wiilkii yaraa ee ceelka laga dhex helay. Kadibna waxaa loo wacay shiikh si uu u fasiro wax jira. Markaas ayuu wuxuu dhahay qofku markii uu dhinto caalamul barzakh ayuu aadaa, mana jiraan wax la yiraahdo reer aakhiraad, ee waxaa laga yaabaa inay yihiin waxaas jin rabana inay idin ogeysiyaan in meeshaas wax ku jiraan. Intaas wixii ka dambeeyna kolleejkii waa la xiray. Dhammaan caruurta oo idilna waxaa la kala siiyey reero kala duwan, halka aniga iyo Basmana aan isbooqan jirnay anagoo laba reer kala joogna. Muddo dheer kadib markii aan noqonay dad waaweyn, aniga iyo Basma waan is aroosnay, waxaana yeelanay reer aad u weyn, waxayna taana ilowsiisay rafaadkii faraha badnaa ee aan soo marnay.